بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك السواد جوكتان كسو دبادة ديجيزيال برنامج كوحبر شدا مانتا barnaamijka waxbarashada maanta xiiso gaar ah ila waxaad ku maqli doontaan waa sidee waxbarashada maanta magaalo madaxda dalka Soomaaliya ee Muqdisho jaamacadaha iskuulada iyo dugsiyada quraanka lagu barto oo muddooyinkan aad ugu soo farabadanay magaalada Muqdisho iyo shacabka reer Muqdisho oo aad u soo dhabeeyay horumarka ay gaareen sidoo kale dhageystayaal barnaamijka waxbarashada maanta waxaad ku maqli doontaan waa sidee iyaguna waxbarashada ka jirta qaar ka mid ah magaalooyinka gobolada dalka Soomaaliya oo ay ugu horeeyaan Baydhabo Beledweyne iyo Kismaayo iyo sidoo kale codad aynu ka soo duubnay qaar ka mid ah carruurta Soomaaliyeed oo iyagu loo yaqaan darbijiifyada oo ka cabanaya waxbarasho la'aanta haysata sidoo kale dhageystayaal inta aynu barnaamijka ku guda jirno gaar ahaan qaybihiisa dambe waxaad ku maqli doontaan qodobkii dooda oo aan filayo isaguna inuu xiiso gaar ah leeyahay barnaamijka waxa ay farsameynaya Big Indos anigoo Mahad Cabdi ayaan idila socodsiinay hadduu ay baraali ka noqdo hase yeeshee inta aynu barnaamijka u guda galin aynu ku daafurno heestii aqoon la'aan waa iftiin la'aan
barnaamijka dib ugu soo noqonay heesaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka waxbarashada maanta bal markan waa sidee waxbarashada magaalada Muqdisho sidaan wada ognahay magaalada Muqdisho waxay soo martay marxalado kala duwan kadib burburkii dawladii Allaha u naxariistay Maxamed Siyaad Barre waxa isbedelay burburna ku yimid iskuulaadkii qadiimiga ahaa asayeeshee sanadihii ugu dambeysay waxa soo iftiimayay waxbarashadii lagu yaqiinay magaalada Muqdisho waxa dayactir lagu sameeyay iskuulaadkii loo tagi jiray waxbarashada iyadoo ay si dheer tahay dhismooyin cusub oo lagu soo kordhiyay magaalada taa oo loogu talagalay jaamacado ama goobo ay dadku wax ku baran karaan markaad eegto magaalada Muqdisho ama aad dhaxtaagan tahay dadku waxay u kala hayaamayaan goobaha waxbarashada haba u badnaadaan caruurtu iyaguna waxay aadaan dugsiyada Quraanka Muqdisho waxa ku yaala jaamacado iskuulo iyo dugsiyo Quraan lamana soo koobi karo tiradooda sababtoo ah waa caasimadda dalka hooyo Soomaaliya waxayna ka kooban tahay 16 degmo Muqdisho waxa yimaada hay'ado aad u fara badan iyagoo caawiya dadka doonaya inay dhisaan goobo dadku ay wax ku bartaan in yar haddii aan sharaxaad ka bixiyo dugsiyada Qur'aanka Kariimka waxa wax ka barata caruurta aadka u daada yar caruurtaasi goorta ay Qur'aanka dhameeyaan waxa loo qabtaa tartamo Qur'aanka ah dugsigii ama cunugii ku guuleysta waxa la siiyaa hadiyado kala duwan taana waxay sahashaa in caruurtu ay niyad u helaan in Qur'aanka ay bartaan marka aan u jaleecno dhanka iyo iskuulada waxa wax ka barata dhalinyaro lagu qiyaaso 15 ilaa 25 sano jiro iskuuladu waxay isugu jiraan dugsi hoose dhexe iyo sare dhalinyaradaasi markaad la kulanto waxay ku sheegayaan inay diyaar u yihiin inay wax bartaan si dalkooda iyaguna mustaqbalka dhow waxa ay ugu qabtaan dugsiga sare marka ay dhameeyaan waxay u sii gudbaan jaamacadaha iyagoona waxbarashadoodii halkaasi ka sii wata magaalada Muqdisho iminka waa ay iftiimaysaa dadka reer Muqdisho waxa ay u baraarugeen waxbarashada waxayna aad u soo dhaweeyeen horumarka ka iftiintay magaalada gaar ahaan xagga waxbarashada markana waxaan u jilaacaynaa magaalo madaxda gobolka Hiiraan ee Beledweyne waxbarashada gobolkaasi sida ay tahay Beledweyne waa magaalo madaxda gobolka Hiiraan waxa ku nool dad aad u fara badan waa magaalo aad looga qadariyo xagga waxbarashada kamana yaraysato tan ka jirta magaalooyinka kale ee ku deedsan dalka Soomaaliya waxaana ku yaala dugsiyo iskuulo iyo jaamacado xagga jaamacadaha haddii aan ka eegno waxa ku yaala 3 jaamacadood waxaana ugu caansan jaamacadda Hiiraan University waxaana wax ka dhigta arday aad u fara badan oo ku nool guud ahaan gobolka Hiiraan haddaba idaacadda FSK Germany ayaa waxay u kurgashay xaaladda waxbarasho ee ka jirta gobolka Hiiraan waxaan qadka teleefanka kula xiriirnay arday ka mid ah ardayda wax ka barta gobolkaasi gaar ahaan jaamacadda Hiiraan University waxa uu nooga warbixinayaa qaabka gobolka iyo ka guud ahaan jaamacadda University bismillaah horta Beledweyne waa magaalo weyn waa magaalooyinka ugu horeeya dhanka waxbarashada waxay leedahay ilaa 7 dugsi sare dhowr 14 adi oo dugsi hoose dhexe ah 3 jaamacadood waxaan dhigi karaa horta waxbarasho markii la dhaho Beledweyne ma sha Allah ma ku badnaba macnaha dadka inta badan dhalinyaradu waxay bartaan aad waxbarashada xoog loo saaraa waana cadad badan ayaa mar walba ka soo qalin jibiyay iskoolada dugsiga sare haddana alxamdulillah waxay haysaa jaamacado qaasatan aan hadda jaamacadda aan dhigto kala Hiiraan University oo kuliyada badan bixiso sanadkaana jecel inay kuliyada badan ku soo darto waxa ka socoto aan dhihi karaa Beledweyne waxbarashadeeda aad ay u sareysaa marka loo eego waxbarashada dalka Soomaaliya waxaan ognahay jaamacadaha inta aan laga furin Beledweyne jaamacadaha hadda ku yaalo xamar oo kale
بورم oo kale ardada ugu badan waxay ka imaan jireen Beledweyne marka Beledweyne xaq waxbarashada ma sha Allah dadku waxaa moodaa in dhalinyarada ay aad u danayaan xaq waxbarashada waayo qofku waa inuu wax barto dadkana bulshadan waxay dadku u hormartaa inay wax barato dad ka ilbaxsan ama ka hormarsan haday aragtid way ka waxbarashada xaqeeda ay ku dadaaltaa waxay maraysaa sanadkii labaad oo ay hadda gabagaboobay waxaa lagu furay 3 kuliyadood waxaa dhigata 149 arday hadda waxaa la jecel yahay in lagu daro kuliyada beeraha oo hadda aan Soomaaliya aysan lahayn macna koonfurta Soomaaliya oo kale aysan ku oolin iyo kuliyada BA ayaa la jecel yahay in maamulka ay ku daraan waxaa jirta 3 kuliyadood oo kuliyada General Nursing iyo kuliyada IT iyo kuliyada shariicada for example hadda kuliyada oo caafimaadka oo nursingka wax badan ayay Beledweyne ka tartay ayagoo wali aan dhameyn oo sanadii labaad ku jiro ayaa waxaan mahad u celinaa hay'adda MSF oo ogolaatay inay isbitaalka Barato ku suubiyaan taas waxay keentay in shaqadii oo si badan isbitaalkii u socoto servicekii oo shaqaalaha oo bato waayo dad arday oo theory leh oo u baahan oo kaliya Barato ay imaaday shaqadiina ay ku dadaalayeen inaysan halaabin waayo qofku markii uu wax barto haddii uu hadan oo helo practically waa wax weyn aad ayeen dadka reer Beledweyne u soo dhaweeyeen waana mirihii ugu horeeyay jaamacadda Hiiraan laga helo waayo qof kasta Beledweyne joogo ama bukaan oo joogo kale isbitaalka Beledweyne waa dareeyay si fiican loola macaamilo waayo wixii ay soo barteen ay ku suubiyaan marka mirihii oo Hiiraan waxaan dhihi karaa ayadoo 2 sano jirsatay jaamacadda ayaa la helay kuliyadaha kale insha Allah ayadana sidoo kale waa la heli doonaa kuliyada shariicada kale ma sha Allah dad culimo ah ayaa dhigto oo aad wax uga bartay kuliyada IT sidoo kale rag injineer ah ka soo socdo oo hadda qaar kood shirkadaha magaalada u shaqeeyo oo wax badan ka bedelay marka insha Allah Beledweyne waxaan waatahay dhegeystayaal intaasi aynu kaga gudubno waraysigii aynu la yeelana mid ka mid ah ardayda wax ka barata magaalada Beledweyne ee gobolkaasi Hiiraan goodhow waxaa inoo soo socda warbixino aynu ku eegayno waxbarashada ka jirta magaalooyinka Baydhabo Janay iyo Kismaayo balse aynu ku yaranasano mid ka mid ah kalimaha suugaanta oo inoo soo dooqay farsamayaqaan Big Indos Will you hold me down?
dhegeystayaal intaasi aynu kaga gudubno wali waxaynu bartan kaga jirnaa barnaamijka waxbarashada maanta bal markana aynu u jileecno dhanka iyo magaalada Baydhabo waxbarashadeedii sida ay tahay magaalada Baydhabo waa magaalo madaxda gobolka Bay waxaana loo yaqaanaa Baydhabo Janay waxaana ku nool dadyow aad u fara badan magaalada marka aad dhex joogtid dhan walba waxaad ku arkaysaa oo indhahaagu qabanayaan caruur iyo dhalinyaro iyagu gacanta ku wata agabkii waxbarashada dadka reer Baydhabo boqolkiiba 75 waxay ku mashquulsan yihiin waxbarashada Baydhabo Janay waxa ku yaala dugsiyo quran iskuulo iyo jaamacado inkastoo iskuulaadku ay u badan yihiin balse waxaynu soo qaadanaynaa Bay University oo ah jaamacad aad u weyn lehna kuliyado aad u fara badan oo gaaraysa ilaa 7 kuliyadood haddaba kuliyadahaasi waxaa ka mid ah kuliyada caafimaadka kuliyada ganacsiga kuliyada cilmiga kombiyuutarka kuliyada kalkaaliyaha caafimaadka kuliyada fayadhowrka guud kuliyada shaybaarka kuliyada shareecada islaamka haddaba waa kan madaxa jaamacadda Baydhabo Kalay oo ka warbixinaya sababaha loo aasaasay iyo qorshaha cusub ee iminka lagu soo kordhinayo jaamacadaasi jaamacadda koonfurta Soomaaliya University of Southern Somalia may la aasaasay 2008 yalla furi laakiin kahor 2040 ma socday process inta la fure waqtiga la fure ayleen fure barnaamijkaas socday intii jaamacadda la furna ma hormaray macadka cilmi baarista iyo tababarada macadkaas yaa ma hasaaray natiijo in jaamacaddi waqtigii sheel roog in la furo mayna leen furay ardayda dugsiyada sare dhamaysatay goboladan koonfurta Soomaaliya oo meelan ka dhow iyo walbarashan ka bahayaan nagati magaalada Muqdisho iyo ku hegaas ki Suudaan iyo meel waasana nasiib shay laakiin mayna gatay in jaamacad gudaha bankiyaal aqoon-yahano badan oo gudaha iyo dibadda talooyin dhaxmari yamaha saartay in jaamacadan oo la magac batay jaamacadda koonfurta Soomaaliya taasoo lagu kaso koro in koonfurta dhanba jaamacad kale ka yaalna taasa marka meeshan tahay in la furo jaamacadan baahida la furo ma haytay markii la aragay macallimiintii dugsiyada sare wal ku dhikaasi oo jaamiciinka yariin hana dugsiyada sare ku bahi oo isla dugsiga sare ka nagada aqoontiina dugsiga sare ka kaadasa dhinaca caafimaadkana ma la aragay in dad aqoon caafimaad leh goboladan ka yariin sida ogda isbitaalka Baydhabo ka yaala ma hayay isbitaalka Alta Jubbaland in shaqeeyo hay geeki dawladda jarti ka bacdi isbitaal weyn oo goboladan ku dhisan male kiina dadka oo aqoontiyo dugsi dhexe baan dhaafsiisanaynaa badaday marka natiijada oo cilmi baarista ka batay ma haytay koow in la furo jaamacadan saldhig sheena nagada magaalada madaxda Baydhabo oo center meel kasliin ku kooyo karo ilaa Hiiraan ilaa Gedo ilaa Jubbada Dhexe ilaa Bakool haddana yani walbarashadii oo si liinbadi in macallimiinta dugsiyada sare horta dhikaasi oo aqoontii heer dugsi sare haytay in la helo walbarasho heer jaamacadeed iyo dhinaca caafimaadka على أقل حد waatay dhegeystayaal bal markana waxbarashada magaalada Kismaayo waa magaalo qadiimi ah waxaana ku yaalo
jaamacado iskuulo iyo dugsiyo quraan magaalada Kismaayo waxay caan ku tahay jaamacada Kismaayo oo iyadana leh kulliyo aad u fara badan sidoo kale waxa ku yaalo iskuulo dugsi dhexe sare intaba leh dadka magaaladaasi waxay aad ugu mashquulsan yihiin xagga waxbarashada sidoo kale waxa ka shaqeeya oo xarumo ku leh hay'ado waxbarasho waa tahay dhegeystayaal intaasi aynu kaga gudubno magaalada Kismaayo goodhow qodobkii dooda ayaa nagu soo foorleh xagga taleefanada ayaana nagala soo qayb qaadan kartaan inta aynu qodobka sheegin aynu yara dhageysano caruur Soomaaliyeed oo iyagu loo yaqaan darbi jiifada oo ka cabanaya waxbarasho la'aanta haysata fuulanaga aroos naagtooda ay markab ka soo gameen wala inta wax aan gaalo male wala nolol oo caafimaad iyo warshad waxbarasho ma geelan waxa uu baaqa dadka walaalideeda dal joogan dadka kale waxa uu baaqaya inay waxbarasho ay geliyaan ay maxaa ka marka hadii dadka hadda inta ay ku siiyaan waxbarasho oo iskool Muqdisho lagu geeyo noloshaada la bedelo ma ahaanaysaa mid si toos u barto ma sidii ay ugu soo laabanaysaa goobta hadda ku sugan tahay hada dib mu soo laawnaadi wax li qabtaan aniga Soomaal number 4 ku noolaa mesela faasano ya gaajayso ay kulali meel darbi jiifaska darbi la iska jiifaan meel ay marka maxaa kale isticmaashaa oo raashin ama guri aad u hoyato ama waxbarasho aad haysato maxaa kamid ah intee saacada aniga darbiga saacadaani ماشي أركز كسر هذا ضاع مدع باعيين. داوع أنتو كاسو قاري مرة. يا. داوع حقو كاسو قاري. وفر لوحة. أي فرق أنتو واقع معناها أنتو كسرنا مركو فرق وبدعي. وتصع. مدرسي. جدال. داوع هو. بلاندرا بقى. ودي. marka waxay sheegtaan nolosha ku nooshahay waliba waxa inta badan aad isticmaasho markii meeshan aad joogto أنا ماشان واسكجوا قال جاجب دشي ماشان ونعس عروي الناس كابتو أي مركب مد سوماليد محاو باقيسا يا مد سوماليد محاو باقيسا إن نوت في عن لا ودك في عن أي مركب هذا ركتو ويل كل ميدا أو جاد هذا إيه أو إسكول سعدو محاضرين كوسيلون غنيا وحناخ عيلونا أي مركب محاد إسلاذا مركب ويا أبغى يكونوا ليان وإذا بس سجل codkaasi aad maqlayseen waa mid ka mid ah xarunta darbijiifyada sidoo kale waxaa jirta caruur aad u fara badan oo iyagana ka cabanaysa xagga waxbarashada hadaba dhageyste caruurtaasi markii aad maqashay sidee buu dareenkaagu noqday qodobka dooda maanta waxa uu noqonayaa sidee caruurta Soomaaliyeed ee aan qarash ka haysan waxbarasho loogu abuuri karaa iyadoo magaalada Muqdisho ay ka jiraan xarumo waxbarasho hadaba goodhow ayuu naqadka telefoonka furi doonaa waa tahay aynu dib ugu soo noqono barnaamijka waxbarashada maanta gaar ahaan qodobka dooda qadka ugu horeeya aynu eegaynaa hallo salaamu calaykum wa calaykum salaam walaal magacaaga iyo halka naga soo wacayso magacayga asma ayaa la dhahaa waxaan ka soo wacayaa waddanka Sweden waa tahay asma haddii aad qodobka dooda la socotay waad mahadsantahay qodobka dooda waan la socday haddii aan fikirkayga soo koobo caruurta Soomaaliyeed oo dhibaataysan ee aan waxbarashada awoodin waxaa waxbarasho lagu abuuri karaa aan isleeyahay in hay'adaha waxbarasho ee ka soo qayb gala dalka Soomaaliya ee waxbarasho lacag la'aan siiyaan caruurtaasi waan gartay sidoo kale Soomaalida qurba joogtada waxa ugu baaqi lahaa in caruurta Soomaaliya ee masaakiinta iyaguna inay gurmad la soo gaaraan waxbarasho iyo xagga caafimaad intaba waad mahadsantahay walaal mahad xarafan waa tahay asma aad baad u mahadsantahay qadka xiga assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaal magacaaga halka naga soo wacay magacay walaal waa Maas Putin oo ka soo wacayo waddanka Sweden. waa tahay maha ku soo dhawow barnaamijka waxbarashada gaar ahaan qodobka dooda haddii aad la socotay hore u gudagal Waan ku dhawahay
mahadsantahay mahad waxaa qolku waxbarashada macnaha waxaan kala hadlayaa ilmaha darbi jiifka waxay ugu bixi karaan in macnaha ilmaha meel xanaano loo furo oo wax bartaan oo la aruuriyo oo macnaha la taakuleeyo saas macnaha ku noqon karaan because ilmaha haddii macnaha la taakuleen oo macnaha xerooyinkaas loo furin haddii wadankii wax u yahay malan ilmahaas dartiisa wadanka wax ku yahay marka waa saas mahad qodobka aynu ka hadlayno ayaa taa ah yaa is leedahay ama caruurtaasi badbaadin karaa wallahi ilmaha waxa badbaadi karo mid koowaad ilaahay baa badbaadi karo mid labaadna waxa badbaadi karo macnaha dadka qurba joogta oo macnaha qurbaha joogaan in macnaha wax kusoo daraan oo taakuleeyaan oo maciinaan qof walba macnaha hadduu hal kron iyo hal eera iyo hal door heli karo iskugu daraan saas bay ilmahan macnaha loo maciin karaa laakiin qurba joogta ka sokow magaalada muqdisho waxaa ka jirta maamul dawladeed marka maamulkaasi maxay wax ugu qaban la'yihiin ayaad is leedahay caruurtaasi masaakiinta ayaan waxbarashada awoodin wallahi niyo kulli toban Soomaali waa iska taqaanaa iyada dhaqan wax iska taabo corruption socdo iyo macnaha musuqmaasuq wixii hadda loo soo macnaha loo soo dhiiban hadii ayagaas ku cunay because waa hadii saddex sano dagaal ku jiraan marka taas waa marka dibka taas waay laakiin waxa ugu baaqay hadirtaan macnaha maamulka jiro hadda waxoogaa dawlad yar oo fiican baa la yeeshtay marka waxaan ka codsanayaa inay macnaha ilmaha xoog saaraan oo gacan ku qabtaan oo taakuleeyaan koleeto lacagta loo soo dhiiban hadii cunin diiwaanimo weyn waa tahay moha aad baad u mahadsan tahay adaan barada qadka xiga hallo salaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso walaal walaal magacay waxa la yiraahdaa Cabdulqaadir Faarax Saniye waxaan ka soo wacayaa wadanka Jarmalka waa tahay magaalada Dortmund waa tahay Cabdulqaadir waxaad naga soo wacaysaa dalka Jarmalka haddii aad la socotay qodobka dooda wala socday waxaan laga hadlayaa baan jeclahay barnaamijyada wadankeena ku sugan oo aan haysan waxbarasho iyo kaalin caafimaad ama wax ay magaranaysaa noloshooda aanay dhamaystirnayn marka sidee wax looga abuuri karaa caruurtaasi aan awoodin waxbarashada waxa looga abuuri karaa saaxiib markaan taa kula eego wadankeenu aad buu u burbursan yahay waxaa horta keenaysaa kaalinta koowaad waa burburka waan gartay iyo colaadaha raagay oo deesanaa colaada ay ku jirteen iyo dowlad aan awood weyn lahayn oo aan wadankii inoo hayn oo baawarkii aan caruurtii waan ka xumahay Cabdulqaadir qadka ayaa ka go'ay balse intaa ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka waxbarashada maanta oo aad ku maqasheen qodobo aad u xiiso badnaa barnaamijka waxaa ii farsameynay Big Indoors anigoo ah Mahad Cabdi ayaana idila socodsiinayay taniyo inta aynu barnaamijkan xiga ku kulmi doono waa anigoo ah Mahad Cabdi oo idinkaaga tagaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh I